ku xiran janaalka marka la soo dhawaado aad iyo aad u mahadsantiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago xisbiga Republikaanka ah oo qalqal iyo cabsi doorashooyinka xilliga dhaxaha ee hadda u bilaabatay kadib markii toddobaadkii hadda dhamaaday laba kursi oo gobolka Texas oo ah gobol red ah xubno dimuqraadiyiin ah ay ku soo baxeen haddaba aqlabiyadda aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka imisa ay Republikaanku hadda ay ku hayaan cabsidana maxay tahay waliba xitaa madaxweyne Trump uu bishii hore ka dhawaajiyay in dhinaca dimuqraadiyiinta ay uga imaan karto oo labada aqalba lagala wareegi karo dhamaadka sanadkan marka doorashooyinka xilliga dhexe ay dhacaan arintaasi waan idinla wadaagayaa iyo madaxweyne Trump oo maanta soo jeediyayba doorashooyinka in la qarameeyo dowladda federaalka layla wareegto waxaan ognahay doorashooyinka waxa u madax bannaan gobolada waxaa sidoo kale jirta in wasaaradda cadaaladda guud ahaanba gobolada kontonka ee Mareykanka ay ka dalbatay in xogta dadka codbixiyaasha ay la wadaagaan imise gobol ayaa u hogaansatay imise gobol ayaa su'aal ka keentay imise gobol ayaa diiday kuwaasna sidoo kalena waan idinla wadaagaya arrimahaas muhiimka ayaan rabaa inaan idinla wadaago balse marka hore soo dhawaada bilaabo waxaan ognahay in wadanka dhamaadka sanadkan uu gali doono doorashooyin markale waxaa la yiraahdaa doorashooyinka xilliga dhexe sababta loo qabtana waxay tahay waxaan ognahay aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka oo 435 xubnood ka kooban 2 sano kasta waa la doortaa halka xubnaha sanadka 6 sanaba mar la doorto walow isku mar aan iyaga la wada dooran oo sanado ay kala leeyihiin marka doorashooyinka xilliga dhexe sababta loo sameeyo waxay tahay xisbiga aqalka cad fadhiya oo madaxweynaha haysta waxa haddii siyaasadooda ay shacabku u bagi waayaan in xubnaha Congress-ka aqlabiyadiisa lala kala wareegi karo marka madaxweyne Trump waxaan ognahay bishii hore isagoo xubnaha xisbigiisa la kulmayay inuu yiri haddii doorashooyinka xilliga dhexe ay aqlabiyada labada aqal ay la wareegaan dimuqraadiyiinta xitaa xilka qaadis ayay ugu sameynayaan oo impeachment ayay ugu sameynayaan marka waa inaan ku dadaalnaa sidii aqlabiyada aan aysan xisbiga dimuqraadiga ula wareegi lahayn laakiin saasaanka arinta hadda muuqata xisbiga Republikaanka cabsi waa waray ayaa u shidan sababtuna maxay tahay toddobaadkii hadda dhamaaday gobolka Texas oo ah gobol red ah oo Republican Trumpna markasta uu doorasho kale uu ku guuleysanayay ayaa arin la yaab leh ay ka dhacday laba kursi oo midna uu ahaa aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka midna sanadka gobolka Texas uu ahaa ayaa Republicaanka looga guuleystay haddii aan ku hormaro kursigan oo ah degmada sagaalaad ee aqalka sanadka ee gobolka Texas waxa ku guuleystay dimuqraadi oo Tyler Rahmed nin la yiraahdo ayaa ku guuleystay waxa uu kaga guuleystay haweeneydan la yiraahdo Leah Wambsganis ayuu uga guuleystay 57% ayuu helay 43% gabadhaas Republicaanka ayaa heshay marka arintaasi waxay noqotay arin aan horey wali loo arkin waxa la leeyahay ilaa iyo sanadkii 1992 ma aysan dhicin in kursigaasi ay ku guuleystaan xisbiga dimuqraadiga sidoo kale waxaa jirtay aqalka wakiilada doorashooyin waxaa jira xubno iscasilay ama kuwa dhintay oo aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka marka doorashooyin qaas ah ayaa la qabtaa marka laba xubnood oo dimuqraadi ayaa waxa ay ku tartamayeen kursiga degmada 18aad ee aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka marka Kristen Menefee nin la yiraahdo ayaa waxa uu kaga guuleystay Amanda Edwards oo iyaduna dimuqraadi ahayd marka 68% ayuu helay marka labadaasi arrin waxay muujinayaan in doorashooyinka soo socda xilliga dhexe xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysan karaan labada aqal gobolka Texas xitaa waxaan ognahay sanadkii la soo dhaafay 5 kursi oo aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka xisbiga dimuqraadiga laga soo dooran jiray in redistricting ay ku sameeyeen oo ay dhaheen hadda kadib Republican ayaa laga soo dooranaya marka laakiin dadkii dimuqraadiyiinta ahaa oo dimuqraadiyiinta u codeyn jiray adigu ma bedeli kartid hadda Houston area iyo Dallas area dhamaantoodba magaalooyinkaasi dimuqraadiyiinta ayaa ku badan marka wali waa ay soo dooran karaan xubno oo dimuqraadi ah marka arintaasina cabsi weyn ayaa xisbiga Republicaanka ay ku abuurtay madaxweyne Trump oo la weydiiyay xitaa wuxuu yiri waa iska doorashooyin hadda yar laakiin doorashooyinka xilliga dhexe marka la gaaro inaga ayaa ku guuleysanayna laakiin saasaanka hadda muuqda arintaasi ma socoto marka aqalka wakiilada hadda 4 xubnood oo kaliya ayay ka sareeyaan xisbiga Republicaanku xisbiga dimuqraadiga dimuqraadiyiintu 214 kursi ayay haystaan Republicaankuna 218 kursi ayay haystaan welina waxaa jirta kuraas harsan doorashooyinkooda inta uusan sanadkan dhammaan hadda waxaa kamid ah Marjorie Taylor Greene oo bishii January ee hadda la soo dhaafay 5teedii iscasishay oo gobolka Georgia iyo kuwa kale ayaa jira oo iyaguna dhici doono oo la filayo
in dimuqraadiyiintu laga yaabo inay kuraas ka helaan marka inta uusan sanadka dhammaanba ayaa laga yaabaa aqlabiyadda aqalka wakiilada ee Kongareeska Mareykanku inay si aadaha isugu dhawaato marka maxaad filaysaa haddii doorashooyinka xilliga dhexe la gaaro waxaa laga yaabaa aqlabiyad weyn inay aqalka wakiilada ku qabsadaan sanadkana maadaama hadda 7 xubnood laga sarreeyo in iyaguna ay la wareegaan amaba ay awooddu sinaato oo 50 iyo 50 ay noqoto iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa madaxweyne Trump waxa uu maanta sheegay arrin la yaab leh oo xitaa qaar ka mid ah xubnaha Kongareeska ay ku tilmaameen arrintan aan macquul ahayn Trump ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in goobaha codbixinta ee doorashooyinka ay xisbiga Republikaanku ay la wareegaan amaba guud ahaanba wadanka doorashooyinkiisa la qarameeyo dastuurka wadanka Mareykanku waxa uu ogolaanayaa in gobol kastaba uu madax bannaan yahay doorashadiisa dowladda federaalku faragelin iyo kormeer ay ku leedahay laakiin ma ahan micnaheedu in ay doorashooyinka dowladda federaalku ay qabanayso marka Trump waxa uu leeyahay ugu yaraan 15 goobood oo goobaha codbixinta waa in Republikaanku ay la wareegaan macnaha arrintaas waxay tahay arrin la yaab leh waxa uu leeyahay waa in la qarameeyaa oo federaal laga dhigaa doorashooyinka oo dowladda federaalka ay maamushaa marka Trump cabsidiisu halkaas ayay maraysaa in doorashooyinka xilliga dhexe looga guuleysto Trump xitaa doorashadii sanadkii 2020 uu Biden kaga guuleystay weli ma uusan ka sabrin waxa uu leeyahay aniga ayaa ku guuleystay hadda toddobaadkan dhamaadkiisii waxaa dhacay degmada Fulton County ee gobolka Georgia oo ah degmadii Trump oo xeeraryaha gobolka Georgia uu ka codsaday yiri 11,000 oo cod ii soo hel isla markaana xitaa dacwad faragelin doorasho lagu soo ogay walow markuu madaxweynaha noqday meesha laga tuuray ayaa waxa uu diray ciidamada FBI-da waxa baaritaan ay ku sameeyeen dhammaanba codbixintii ayay qaateen waraaqihii codbixinta mashiinadii meel ay la tageen ilaa mas'uuliyiinta doorashooyin gobolka Georgia ma naqan ayay leeyihiin marka Trump waxa uu leeyahay codadkii la iga xaday ayaan doonayaa in halkaasi aan ka soo saaro marka waxa uu leeyahay dadna dacwad ayaa lagu soo oogi doonaa Trump marka 2020 oo hadda 6 sano ay ka soo wareegatay wali doorashooyinkaas ama 5 sano ay ka soo wareegatay wali ma uusan ka sabrin oo waxa uu leeyahay doorashadaasi waa la iga xaday marka arrintaasina sidoo kale waa ay jirtaa dhinaca kale in wasaaradda cadaaladda ayaa waxay dhammaanba gobolada Mareykanka ay ka codsatay in liiska xogta dadka codbixiyaasha ay goboladu ay la wadaagaan arrintaasi oo iyaduna arrin ah faragelin oo goboladu iyagu ay u madax bannaan yihiin doorashooyinka sida aan idin sheegay hadda ugu yaraan 44 gobol oo caasimadda DC ku jirta ayaa waxa ay heleen codsigaasi uga yimid dhinaca wasaaradda cadaaladda oo ah in voter registration listiga dadka codbixiyaasha ee diiwaan gashan inay u codeeyaan in ay la wadaagaan arrintaasi waxa ka mid ah dadka waxyaabaha ay doonayaan inay hesho wasaaradda cadaaladda dadka social security numberkooda leesinkooda ayaa laga doonayaa dhammaanba in la helo marka ilaa iyo 11 gobol ayaa hadda intooda badan u hoggaansamay oo goboladaasi gobolada Republikaanka ay u badan yihiin ama way u hoggaansameen amaba sidoo kale qayb ka mid ah codsigaasi wasaaradda cadaaladda uga yimid ay u hoggaansameen goboladaasi waxa ka mid ah Alaska, Arkansas, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, South Dakota, Tennessee, Texas iyo Wyoming dhammaanba hadda goboladaasi waa ay u hoggaansameen oo xogtii dadka codbixiyaasha wasaaradda cadaaladda waa ay ku wareejiyeen sidoo kale wasaaradda cadaaladda waxa ay dacweynaysaa 24 gobol oo diiday inay xogtooda la wadaagaan goboladaasina gobolada dimuqraadiga ay u badan yihiin waxa ka mid ah caasimadda DC ayaa ka mid ah oo iyadu gobol ma ahan laakiin 24 kale waxa ay yihiin oo diiday in wasaaradda cadaaladda ay ku wareejiyaan liiska dadka codbixiyaasha Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota waa ay ka mid tahay sababta hadda ICE loogu diray ayaa ka mid ah Nevada ayaa ka mid ah New Hampshire, New Mexico, New York, Oregon ayaa ka mid ah Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin iyo sidoo kalena Washington State dhammaanba goboladaasi waa ay diideen marka ilaa ay hadda sidoo kale goboladaasi waxay leeyihiin anagu liiska dadka codbixiyaasha soo ma gudbinayno marka goboladan kale ee 10ka ah iyaguna waxay leeyihiin bal faahfaahin naga siiya wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda cadaaladda maxay yihiin waxyaabo sababta aad u doonaysaan liiska dadka codbixiyaasha marka clarification cadayn ayaan u baahanahay sababta aad ugu baahantiin liiska dadka codbixiyaasha ayay leeyihiin 10kan gobol 10kaasi gobol waxaa ka mid ah Arizona, California, Colorado, Maine, Minnesota, Nevada,
New Mexico, Oregon, Vermont iyo gobolka Washington State. Marka sida muuqata marka Trump hadda xogta dadka codbixiyaasha ayuu doonaya. Muxuu ka rabaa ma doorashooyinka la isdaba marin rabaa? Marka cabsi iyo qalqal weyn ayaa xisbiga Republikaanka u shidan oo la xiriira doorashooyinka. Trump isagu uu ogyahay inuusan mar dambe wadankan madaxweyne ka noqonaynin, laakiin xisbigii Republikaanka labada sano u harsan waxa muuqanaysa haddii labada aqal lagala wareego in siyaasadooda sidii ay u rabeen aysan u meelmari karin, maadaama haddii labadii aqal laga haysto sharci kasta waxaad u baahan tahay wada hadal iyo wada xaajood iyo negotiation inaad ka gasho. haddii sidoo kalena ayna dalabka xisbiga aqlabiyadda labada aqal hayana waa inaad u hoggaansataa, maxaa yeelay la'aantood aqalka laba amaba kongareeska waxba ma marin kartid. marka cabsidaasi ayaa jirta dhinaca xisbiga Republikaanka oo hadda u bilaabatay ololaha doorashaduna wixii hadda ka dambeeya bisha 6 markii la gaaro wuuba bilaabanaya, maxaa yeelay doorashooyinka isla reebka ayaa dhacaya, markaasi kadibna November marka la gaaro doorashooyinka xilliga dhexe ayaa dhici doona. marka aad iyo aad u mahadsantihiin, waan arki doonaa waxyaabaha arrimahaasi ka soo kordha intaan markale kulmi doono. sida iyo nabadgelyo.